marka fanna Soomaali baan ka nahay dhaqaale lagu ma hayo waxba lagu ma hayo adoon dhaqaale ku haynin waxaan ku weynaada hadana kibriyo qab asii bad jimco waana wanaagsan dhamaantiin asxaabta qaaliga ee ku xidhan channelkeena asxinta wararka daawadayaal maanta warbixinteena waxaan ku eegi doonaa fanaanka caanka ee Sultan Siraar Guhaad oo soo bandhigay arrin aad u naxdin badan balse daawadayaal inta aynan muuqaalkan aad ku xisaab badan lagu diisa gelin annaguna aan idin soo bandhigin siro badan oo aan hayno daawadayaal waxaan ka codsanaynaa haddii ay booqashadii kugu horeysay aad soo booqato channelkeena asxinta wararka fadlan subscribe noo saar way subscribe waxay naga saacidaysaa channelkeena meel sare gaaro muuqaalkan aad daawanaysidna fadlan like noo saar way like waxay naga saacidaysaa inuu muuqaalkeenu kor u kaco isla markaasina anagana waa noo dhiirigelin way daawadayaal waxaan doonaynaa inaan muuqaalada idin soo badan isla mar ahaantaasina uu channelkeenu higsiga iyo himilada uu leeyahay gaaro haddaba daawadayaal fanaanka caanka ee Sultan Siraar Guhaad ayaa waraysi laga qabtay maalin dhaweyto waxa uu sheegay inuu fanka Soomaaliyeed yahay meel aan guul laga gaari karin isla mar ahaantaasina aan laga sameyn karin dhaqaale fanaanka ayaa arrimaha noocaas ka dhawaajiyay isla markaasina waraysiga isagu ku guda jiray waxa uu yiri fanka waxa laga yaabaa inaan bilaha soo socda ama sanadada soo socda aan macaslaameeyo waayo sababtu waxay tahay buuri waxaan ka faa'iidi waayay buuri waxba fanka Soomaalidana waxba laga faa'iido ayaa yiri fanaanku sababtu waxay tahay waa magac qalalan buu yiri daawadayaal fanaaniinta Soomaaliyeed ayaa badi ahaanba imika sanadadii u dambeeyay fanka iska macaslaameeyay intoodu ugu caansanayd fanaankan Sultan Siraar ayaa isaguna ah fanaaniinta aadka lagu jecel yahay fanaaniinta Soomaaliyeed misna haysta taageero aad u tiro badan haddaba fanaankan ayaa arrinta noocan soo bandhigay isagoo sheegay inuu fanka macaslaameyn doono muddooyinka soo socda sababtuna ay tahay sababtana waxa uu ku sheegay inaan fanka Soomaaliyeed guul laga gaari karin isla mar ahaantaasina aan laga sameyn karin dhaqaale sababtana waxa uu sheegay inuu fanaanku sababaha awgeed uga bixi doono fanka haddaba daawadayaal sida wada ogsooneen fanaaniin badan ayaa fanka iskaga baxday isagoo fanku yahay dambi aad u tiro badan isla markaasina aan laga faa'iidin wax faa'iida magac mooyaan daawadayaal dadka Soomaaliyeed ayaa imika baday dadka Soomaaliyeed ayaa fanka aan waxba ka faa'iidin isla markaasina magac mooyay wax kale ka faa'iidin sidoo kale Soomaalida ayaa ciyaaraha iyaduna sidoo kale isla mar ahaantaasina lamida musiga fanaaniinta iyo ciyaaryahanadu Soomaaliyeed waa isku mid labaduba dhaqaale kama sameyn karaan ciyaartooydu haddaba daawadayaal fanaaniinta Soomaaliyeed ayaa intooda badan sheega inaan fanku lahayn wax faa'iido ah haba yaraatee sidoo kale ciyaartooyda Soomaaliyeed ayaa iyaguna sheega inaan ciyaaraha laga ciyaaro Soomaaliya aan wax faa'iido laga heli karin haddaba caalamka waad aragteen ciyaartooydoodu iyaga ayaa ugu qanisan inta ku nool caalamka haddaba daawadayaal fanaaniinta caalamku iyaguna kadalik daawadayaal waxay ka sameeyaan lacag aad u tiro badan walow aanay dadkeena iyo isgaari karin dadka Yurubta ku nool waayo Soomaalidu isma dhiirigelisay isla markaasina kuma dhiirigelisay qofka walaalkeeda ee horumar gaara caalamka wax la sameeyo qofku hadduu soo bandhigo wax horumar in loo sameeyo bil uu ku dhiirigelin isla markaasina uu hawshiisa kor ugu sii qaadi karo daawadayaal intaas in muuqaalkeena kusoo gabagabeynayna aad adigu maasin daawasho fiidiyoga daawanaysan fadlan muuqaalka noo like garee noona sii share garee comment nadiifana noo reeb aad adigu maasin daawadayaal intaas in muuqaalkeena kusoo gabagabeynayna waa inoo muuqaalka dambe